barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare ayaa maanta duleedka deegaanka Habaasweyn ee degmada Gumburaha Banka ee gobolka Hawd ugu kala wareejiyay xoolo maga 3 beelood oo kamid ah bulshada walaalaha ah ee wada degan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Hawd. barasaabka gobolka Hawd ayaa si muuqata ugu qori tuuray hanaankii ay labada dhinac u kala qaadan lahaayeen geelaasi magta ah. cuqaasha odayaasha iyo waxgaradka ka kala socday saddexdan geesood ee gashigu u dhaxeeyay ayaa magtaasi u kala gudoomay hanaan ay hufnaan iyo niyad samaan badani ka muuqato. xoolahan magta ee maanta la kala qaatay ayaa wadartooda guud dhamayd 200 oo halaad, taasi oo lagu kala gudoomay 100 halaad oo dhogora iyo 100 halaad oo lacaga. waxaana madashaasi hadalla duco iyo dardaaran bay iskugu jira ka jeediyay cuqaashi ka kala socotay saddexdan beelood ee la kala wareegayay magtan lagu gunaanadayay gashiga u dhaxeeyay saddexdan beelood ee walaalaha ah. halkan waxaan ku wareejinaynaa 200 oo halaad, 100 horaan u bixinay oo lacag buu ahaa, 100kii kale dhogora ayaa halkan lagu kala wareejinaya. midba konta ku haray buu qaadanayaa. walaalayaal naga gudooma, waana idin ducaynaynaa. haddii ilaahay beedankani waa idinku ducaynaa, nagala gudooma. sidaas baanu nagaga dhayahay geelaasi. 100kii lacagtaa horaa loo qaato waxba la iskagama lahayn. waxa saaka goobjooga 100kii dhogorta ahaa oo iyagana aanu imika gudoomanay. geel mageed la bixiyo ka u sharaf badana ayaanu gudoomanay. haddii ilaahay annagana inay noogu duceeyaan baanu doonaynaa. saaka waxaanu isku leenayna ma jiro. dad walaalo oo deeshil haleun baanu ahayn, iyaguna si wanaagsan bay yeeleen. annana geeli waanu gudoomanay. reer Soomaaliland waxaan leeyahay warshin la waayay maayo dhibe sidaanu wuxuu kala qaadanayna sharafta leh dhammaan loo kala qaato. maanta waxaynu joognaa gobolkii Hawd, waxaanu ku kala qaadanaynaa geela muuqda ee magta ah oo 3 qaybood ah. 2 qayboodna waanu ku qaadanaynaa, qaybna wayna siinaysaa. geelaasi waa noo dhayahay, waa geel qurux badan, waana gudoomanay. gabagabadii barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare ayaa saddexdan beelood ee walaalaha uga mahadnaqay sida nabadgelyada ah ee u kala qaateen gashigaasi u dhaxeeyay. waxaad iyo aad runtii farax gelinaya hawlahan geela lagu kala wareejisanayo maanta magtee halkan ee ka soo shaqeeyeen jiif caaqilada iyo cuqaashu. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qolada reer aadan ee iska xil saartay sida ugu dhaqsaha badan leh u keentay geela quruxda badan ee labadii darafba ee qaadanayaba ay ka markhaati fureen. waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. qolooyinka labada qolo ee kale iyagana waxaan leenahay xoolaha agoontii iyo sabirsiis Allah uga dhigo. ilaahay hayni barakeeyo. si wanaagsan iyo markhaati fiican baad furteen. waxaad tidhaahdeen si wanaagsan baa wax naloo siiyey. waana arrinkuna waxa weeyaan shil gaadhi oo baabuur buu ahaa. marka waxaan iyagana waan ugu ducaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gashiga yar ay qaateen Ilaahay u barakeeyo oo Ilaahay ku sabirsiiyo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaad dadkii ka baxay ay maaragtay khayr Ilaahay cawd uga dhigo. waxaan kale halkan baa uga dirayaa dadka gobolka ku nool Hawd iyo dhammaan Soomaalilandba sida sharafta leh waa shil gaadhi. shilka gaadhiga sida wanaagsan ay u bixiyeen dadkan cuqaashan iyo dadka karaamada leh imika halka jooga ayaan ugu baaqayaa in cid kastaaba isaga bixiso oo ku daydaan. dadka kalena waxaan ugu baaqayaa inay sidaas oo kale sida sharafta iyo karaamada leh u bixiyaan. aad iyo aad ba dhamaantiin buu mahadsantiin. shaqo wanaagsan oo Ilaahay xaggeedana ku wanaagsan, xagga bini'aadanka iyo xagga dadnimadana ku fiican baynu maanta dhamaanteen wada qabanay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leeyahay Ilaahay haynaga aqbalo, ajar iyo xasanaadna haynoogu bedelo. Maxamed Shiciir Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cismaan, TV qaranka Soomaaliland, magaalada Balli Gubadle.